magaalada Buuhoodle waxaa maanta ka dhacay mudaharaad aad u ballaaran oo si weyn loogu cambaareeyay dagaalada ka soconaya deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. sidoo kale mudaharaadkan waxaa lagu taageeray madaxda sare ee Puntland waxaana shacabka ka qayb galay ay sheegeen inay taageersan yihiin madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisaba. mudaharaadkan sidoo kale waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah oqaasha iyo waxgaradka deegaanka Buuhoodle. dadkii ka qayb galay mudaharaadkan waxay baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu ciidamadiisa kala baxo deegaanada Sool isna ay yacayn aad uga xunnahay oo xambaarayna dagaalka lagu qaaday Sool ee lagu haysto iyo Tukaraq dhibaatada ka socota Soomaaliland ay ka wadaan baanu xambaarayna waanu ka xunnahay ma ogolin ma yeelayno waqooyi baanu nahay laakiin wax Soomaaliland la yiraahdo aan isku raacsannahay oo aan ogolahay ma jiro goosashaanu ogolayn Soomaaliland baanu nahayn daarood baanu nahay maamul baanu nahay khaatumaanu nahay Puntland baanu nahay Soomaali baanu nahay wax kale aanu aqbalaynaa ma jiraan wax ka tumana waxay ku dambeysay madaxtooyadii Soomaaliland bay ku dambeysay madaxdeedu ku dambeysay taana waxaanu aqbali karo qaadan kareenaa ma adeerkay professorka madaxweynaha khaatuma waxaan leenahay wallahi billahi oo tallahi dastuurka haddii hartiro la siiyo dastuurka Soomaaliland qaadan maayo ma qaadanayo leenahay waxaan balyeynaa wixii kugu baaqday baa maanta aad wada hashiyo darartay baad liisaysan anaa weydin la liisaynaa taariikhdu wax iska dhigan weeye haddii ay jirto xuduudi waa tii uu dhigay Ingiriisku waxa weeye tagaatimo taala weeye waa tagaatimo taala ee qabaa'iladii ku noolaa waqooyiga Ingiriisku u dhigay mid kale oo meel taala ma jirto haddii aad taadeen yooca wax taala taad ku lunteen weeye waa taari khaliif idinku gacmo goday xuduudda soo xira yoocada taga waa taad maanta af libaax aad ku gasheen libaax meel yuurura shaarubadiisa waa taad maanta isugu taagteen waa taad maanta meel alla iyo meel aad uga baxdaan aad la hadhiin weeyaan waa ta cirku idinku bannaan yahay waa ta aan qof idinkaga soo noqonaynin annaguna haddaanu nahay gobolka Cayn horaynu isu mudanna haddana waxay la tahay waa idin diyaargaraysan yahay waa ka waxaad geysateen Muuse Biixi qura maaha silaaya ka horeeyay kii kale ka horeeyay baa jira damaaciga xumaayana casnimo maanta waa la isugu yimi maanta sidii aynu u sinayn baynu u dagaalamaynaa sadayno ninka taakin baabay taboogada shantada dhaaftay way kala tagaysaa ka kaatay ka kula tagan baa lagu tilmaamay tuka iyo sidii labada la isugu dhintay waxa inaad cabirto oo aan dalkaaga iyo dadkaaga ka u tookhayso ilaga taaglayo yoocada lagu taaglayo lagu abinayo lagu bariyo caalamku inta ku eegay baraadayta madaxweynaha inta meedu dago ila infdi ila nasareed reerka daga ee laga taaglayahay waxaad ka heshaan leedahay ana u taaganay ciidamadayada isu yimi ee difaacaya dalka waxaanu ilaahay barta joogtaana ka noqonina way barbar taaganahay waanu diyaar garoobayna way u dagaalaynaa madaxweynaha ku-xigeenka waxa ka soo Puntland kidigood waanu hambalyeynayna waxaan leeyahay nin walaalkii la dilay oo aabihii la dilay oo gabadhoodii la dilay dabiir darada inta leeg meeshaad ka keentay ninka yaqaana alleena hadduu alla yahay naga baxa idinkuna alleena hadduu alla yahay naga baxa inamada dhulbaxantay ku jirana dad islaam hadaa tii dadkina soo raaca intaas ayaan kaga baxaya reer Buuhoodle uu u dhan yahay inamada ciidamada Puntland aad baan u bogaadinayaa ilmaha reerayaan ana weyna la jabiyo boolista haddaad maanta garateen waxa loo socdayo ee dhulbaxantayda isirdirayta daarad socod loo socdo leekasaha loo yeedho mareexana loo yeedho ogaayana loo yeedho daarad dhagaha daarad Ismaaciil loo yeedho talkay meel isugu guuro kami maayo jaru talkay meel isugu guuro gadabayna aan tagniyo labida geesteeda oo goboladani maqna galowgu dhilabo oo lagu gudoonsado inaan cadow garwaaxaysan hadduu nabada goobayay haddii uu guyaal gorada laladshay gardarradu ma fiicne ergada aan gadaal celinay gunta waabaalkeedina aan gabagabaynaaye warsuugiyo ganta وعلى عثمان سعد الدكتور ورك تلفزيون عالمي اسماعيل نيوز مقالة بوهودله حروس قبل